عليكم أصحابتنا dhegeysanaysa kusoo dhawaada maqaal cusub oo aan kaga gaarnay tobanka magaalo ee ugu booqashada ama dalxiiska badnaa sanadkii ee 2018 waxaana maqaalkeenu u gelnay asxaabta waxaan ka codsan subscribe noo saartaa kuna kambaleelka taawataan si ay inuu soo gaaraan wax walba oo cusub oo soo dhigno intaan u gudubgelin maqaalkeena asxaabta waxaan rabaa inaan xusuusino inuu channelkan yahay mid cusub oo maalmahan aan ku wadno tijaabo laakiin maanta wixii laga bilaabo hawada usoo galay san u shaqayn doonaan asxaabta codsanina inay subscribe noo saaraan si aad hore nooga barateen sanadihii hore aan kasoo shaqayno waxaan mar walba diiradda saaraynaa inaynu qancino ama soo gelin fiidiyoyaal xiiso leh oo aynu soo jiidno. Number 10 Seoul, South Korea waa mid ka mid ah caasimadaha ugu qurxoon uguna dadka badan. Waa magaalo caan ku ah dhismayaasha casriga ah iyo tiknoolajiyadda. Waxay xarun u tahay shirkado waaweyn oo ganacsi sida Samsung, LG iyo shirkadda caanka ah ee gaariyaasha samaysa Hyundai. Sidoo kale waxaa ku yaal meelo badan oo taariikhi ah. Waxaa soo booqday dad lagu qiyaasay sanadkii tagay 10 milyan oo qof. Number 9 Istanbul, Turkey caasimadda labaad ee Turkiga waana magaalada ugu weyn Turkiga iyo guud ahaan Yurub. Waa magaaladii quruxda iyo taariikhda. Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna qurxoon waxayna caan ku tahay goobo badan oo taariikhi ah. waxaana ugu caansan Masjidka Suleymaaniya. Istanbul waxay caasimad u noqotay boqortooyin badan oo soo maray adduunka waxaana ugu caansan boqortooyada Cusmaaniyiinta. Istanbul waa magaalo ka duwan magaalooyin kale waxay leedahay goobo badan oo taariikhi ah. Waxay sidoo kale dhacdaa laba qaaradood waxaana soo booqday sanadkii tagay dadka badan 10 milyan iyo bar. Number 8 Tokyo waa caasimadda Japan waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu saameynta badan adduunka. Tokyo ma ahan oo kaliya magaalo caan ku ah ganacsiga, sidoo kale waxay caan ku tahay dhaqanka iyo cuntooyin kala duwan. Waxaa soo booqday dad lagu qiyaasay 12 milyan oo qof waana mid ka mid ah magaalooyinka lagu ixtiraamka badan yahay laguna jecel yahay adduunka. Kuala Lumpur waa caasimadda Malaysia waana magaalo caan ku ah dalxiiska waxaana ku nool lagu qiyaas 7.1 milyan qof. Waana magaalo caan ku ah hoteelada casriga ah iyo goobaha dalxiiska. Waxaa soo booqday sanadkii tagay 12 milyan iyo bar. Number 6 New York, USA tufaaxii weynaa magaalada aan weligeed seexan xarunta ganacsiga adduunka. magaaladii boqortooyada waxay leedahay magacyo badan oo caan ah. waa New York City waa magaalo caan ku ah goobaha casriga ah iyo xarumaha ganacsiga. waxaa soo booqday sanadkii tagay 14 milyan oo qof. Number 5 Singapore ma jirto magaalo la mid ah Singapore. waa magaaladii dalka ahayd. waa 692 kiiloomitir oo iskuweer ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 milyan iyo bar. waxaa soo booqday sanadkii tagay 10 milyan oo qof. Singapore waa magaalo caan ku ah dhismayaasha naqshadaha casriga ah leh ee iyadoo khaaska ah. Number 4 Dubai, United Arab Emirates
yaanan garanay Dubai. Waa magaalo aan lahayn kelmad lagu sifeeyo. Waa caasimadii quruxda iyo dalxiiska. Waxaa soo booqday sanadkii tegay dad lagu qiyaasay 16 milyan oo qof. Number 3 Paris, France. Waa caasimadda France. Waxay leedahay inay naaso badan. Magaalada jacaylka, uduga iyo quruxda waxay caan ku tahay Paris. Goobaha jacaylka sidoo kale waa magaalo fashion iyo cuntooyinka macaan. Waxaa soo booqday sanadkii dad lagu qiyaasay 18 milyan. Number 2 London, UK. Ma jiraan magaalooyin badan oo taariikhiin London. Sababta ay dadku aad u soo booqanayaan waa goobaha taariikhiga, dhaqanka iyo cuntooyin kala duwan. Waxaa soo booqday dad ka badan 20 milyan. Number 1 Bangkok, Thailand. Magaalada quruxda cajiibka lahayd. Bangkok waxay sanadka saddexaad oo xiriir kaalinta koowaad u haysaa magaalooyinka u dalxiiska badan adduunka. Waa magaalo leh goobo aad u qurux badan, indhaha dadkana soo jiidanaya. Kelmad lagu sifeeyo ma jirto, kaliya waxaa ogaan kara qofka booqda. Waxaa tagay dad ka badan sanadkii la soo dhaafay 22 milyan oo qof. Waxaa intaa noogu eg 10 magaalo ee ugu booqashada ama dalxiiska badnaa sanadka 2018. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saartaan kadibna gambaleel ka taabataan. Haddii aad ka hesheen maqaalkan, like saara, comment ka bixi. Mahadsanidin.